Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada Tanjineefa ee wadankan Switzerland waxa uu kula kulmay xubno ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Switzerland. Kulankani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa danjiraha Soomaaliya ee Switzerland Marwe Ebyan Maxamed Saalax, diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliyeed ee Switzerland iyo mas'uuliyiin kale oo ra'iisul wasaaraha ku weheliyay safarkiisa. Ugu horeyntii qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Switzerland oo madasha ka hadlay ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa ay ku ammaaneen kaalintiisa hormuud ee doorashada gurmadka abaaraha iyo waajibaadka kale ee xukuumaddiisa loo igmaday. tiimka oo maaragtay ra'iisul wasaare la socdo waa run haddii shakhsiga uu lahayn waa caqiidada islaamka sunanka oo bashariyada waa haddii uu qofka lahayn la taliyaal khair qabo rasuulka ka digay calayhi salaatu wasalaam qofkaas meelna ma gaarayo. ra'iisul wasaaraha hawshu qabtay waa muuqataa muhiimadda wadankan iyo dadkan waxa muhiimka u ahna waa in doorasho la aado xasilooni siyaasadeed la galo sidaasna ummadda lagu badbaasho dhibaataysan oo abaaraha iyo faqrigu halakeeyay waqtiga iska adag ay tahay maalmaha nasiinadu wadankan kooban yihiin intaasoo safar inaan soo galno iyo dad badanoo nala midoo meel ka fufka yimid wadanka dibadiisa waxa ay ka turjumaysaa qiimaha ra'iisul wasaaruhu nagu fadhiyo tiimkiisa. dhanka kale danjire Ebyan Maxamed Saalax ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa ay uga mahadcelisay socdaalkiisa iyo ka qaybgalka shirka ka dhacaya Geneva. mudane ra'iisul wasaare waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa inaad Geneva aad noogu timid sababta aad u timidna minister Caynta ayaa faahfaahiyay laakiin waxaan ku darayaa inay tahay muhiim marka ummaddu ay dhibaato ku dhacdo masiibo ku dhacdo in loo gurmado meel kasta oo la joogo adigoo culays badan uu ku saaran yahay shaqooyin badan oo muhiim aad haysay inaad Geneva timaado oo codkaada ku biiriso international community-ga iyo ummadda halkan joogta adduunka oo dhan baa wada jooga aad u istaagto in la badbaadiyo dadka masaakiinta ah ee gaajada u dhimanaya abaaruhu maaragtay saameeyeen Soomaaliya kaliya geeska Afrika oo dhan weeyaan waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah oo noogu timid. rabaa inaad la soo dhaweysaan mudane injineer Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. safiiradda Ebyan wasiirka Saalax iyo walaalkay safaaradda Soomaalida ee Switzerland jaaliyadda Switzerland gabdhaha iyo wiilasha odayaasha dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga intaan joogay September markii laga soo bilaabo 2020 waynaga goosteen mucaawiniinka heedihiina siin jiray Turkida noo soo celisay wadamada EU-da European-ka oo kale Mareykanka Ingiriiska kulli kab ay dawladda siin jireen laakiin waxa loo joojiyay in dawlad la helo ana qabatayna ka wadan iyo inay nagu dhiirigeliyaan in la sameeyo laakiin Soomaalida waxaas ma kala jecla mana ka naxan madaxdeeda laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu ma ceebaynin mushaarka waa bixinaynay Turkida mar dhow noo bilowday adiga waxaan maleynaa 6 bilood miya 4 bilood ka hor iyo World Bank iyo IMF to iyagana deymana siiyaan intaasan ku shaqeynaa iyo kabkaasna la siiyo waa awoodi la'aanahay inaan safaaradaha qaarkood bixino sababtoo ah dhaqaalihii nagu filnaa ma helno nama soo galaan maxaa la yiraahdaa wadanka ganacsigiisa mooska ma dhoofino khudaarta xoolaha ma dhoofino inka malaha wadankii intaas iyadoo ay jirto oo siyaasad xumana aan ku sii darsanay ayaa haddana Allah subhanahu wa ta'ala ciqaabtiisa uu ciqaabay oo roob la'aan ayaana helay ilaa November ilaa hadeer roobka ma diin shaladaas waa weydiinay webiga biyo wali ma keenin koonfurta Soomaaliya roob ma aysan helin hadda waa aragteen meediyaha waxa ka aragtaa meel markuu roobka doo sidii wiil dhashay camal loogu farxayaa roobkii la sheegay Soomaan waa garan kartaan macnaheedu waxa roob la'aan jirto roob lama helaba marka hadana roob la helin xoolihii aysan baadiye biyo helin waa garan kartaan dadkii magaalooyinka imaanayaan 9 milyan ayay afeysay in ka badan 10 milyan xoolo ah waa ku baaba'een oo way socon waayeen biyo la'aan darteed iyo baad la'aan marka insha Allah saas darteed ayaan waxaan diyaarinay in yabohan oo bari aan bal ku balansanahay oo muddo laga soo shaqeynayay inaan isugu imaano oo dawladaha ay wax ku yabohan
insha allah gacanteena biyaha gacmaha looga dhargaa annaga wax waa qabsan la'ana waa run oo siyaasadda hadday xun tahay amniga uu xun yahay waxba ma qabsan karno marka saa darteed yabohan waa mid iska guud oo aan rajaynayno inaan wax ku helno laakiin gacmaheena wax kaga dhargi karnaa biyaha sacbadaada looga dhargaa cabdi qani cali dalmar warbaahinta qaranka Geneva, Switzerland.